waxaan jideynaynaa inaan doorasho ku qabsano wadooyinkan dhisanay oo aan codkanaga ku ridno oo aan ilaano codkanaga ku cilbaxaynaa waxa noo diidayay bal cidda noo diidayay taa haddaan idin tusno 10,000 oo qof 20,000 oo qof aan meel ay isugu yimaadeen garoomadii sportskiina saad aragtaan magaaladan ugu shaqeynayo waxa diidayo inay cod ku qabsadaan cidee waayo qaybaha kala duwan ee maamulka degmada Hodan u dhisan yahay ayaa meeshan jooga waxaan rabaa sida caadada ahayd inaan ugu hormariyo taliyaasha iyo saraakiishu ma labisna caawa shaatiyadooda wataan qamiisadooda wataan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha ammaanka degmada Hodan sugay ayaan rabaa inaan u mahad celiyo hortiina ugu mahad celiyo inaan u ducaynaa rabnaa wiilashaas naftood huriyaasha ee degmada Hodan ka dhigay inaan idin soo aweysan dhagar oo ogtihiin haddii gadaal loo raaco wixii ka jiri jiray waxaan rabaa saraakiishaas iyo ciidamada dhammaantood inaan u mahad celiyo oo hortiina ugu mahad celiyo waxay naga mudan yihiin bil sharaf waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno waxay naga mudan yihiin inaan garab istaagno waxay naga mudan yihiin qof kasta oo shacab oo degmadan ku nool inuu hay'adaha ammaanka la shaqeeyo inuu wuxuu ku tari karo ku taro inuu dhiiri geliyo warmaysu weydiidaa موبايل لقى قاطو كمبيوتر لقى قاطو ينفتها هاليس الجلي قرما كوجودن بيد هرت مش جلي نمان كاسي جارو تاي وأكو أمانة لوضع تلي مسكح عبد الناصر وجعلي أنا أوجي تلي جاره وهالكان يشوفه إذا كله هو مجال النهارده كده بوليس من الطارق هرت بولوس عبيه يسرقيشوا dawladda hoose ciidankeeda ayagana ilaalada deegaanka leeyahay ayaguna xaadir ah ayagana waa amaanayna waxaan kaloo rabaa inaan caawa amaantayda aan aad ugu soo jeediyo gabdhaha iyo hooyooyinka ayagu maalin iyo habeenba u taagan inay nadiifiyaan degmadan oo nadiifka ka dhigay oo naftooda horiyaasha ee Afrikan qaybta weyn ka ah sababta hadii dadka aan mudnayn aan loo mahad celin waxa nooga imaanaysa waa dhibaato Afrikan gabdhahaas aad qalbiga wala jira 8 saac habeenimo iyo duur iyo subax ayay xaqaan degmadooda dariiq kastay taagan yihiin waxa xuquuqa ma lahan haddana qof kasta igu horeysa waxaan rabaa caawa inaan hortiina uga mahad celiyo ayagana u sacbisaan gabdhahaas qaran bilaa la yiraahdaa magac kale u yaqaanaan ayagu laakiin anagu qaran bilaa u naqaan magaaladan waxa bilay oo qarankan bilay waa gabdhahaas ayagana gooni waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ayagana dadka baahiyaha gaarka leh wakiiladooda gudoomiyaha baahiyaha gaarka leh degmada Hodan oo wakiil ka ah asagu caawa marka halkaan la joogo iyo madaxdiisa martida u ah oo walaalaheena oo 20 degmo 19 degmo kala ka socda oo caawa nala afuray ayagana waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ayagoo saasa bay ummadda u shaqeeyaan ilaahay moogta curyaanka caga loogama waayo caynka wax loo yiri ودad annagana lagu hayaan mid waa ilaa yahay mid waa lagu leeyahay mid waa gacan la yahay mid labada waa la yahay hadayna sunu xariisa ilaahay noo naxariiso maayo dadkaas waxaan ka codsanaa 20 degmo iyo shacabka ku noolba dadkaas iyo dadka ay xukumaan ee baahiyaha gaarka leh ee xilligan duruufaha ku jiro in ilmahoodu iidisay haddaan la soo afurin horta bal ilmahooda in loo ciibsiyo waxaan marti uga ahay dhammaan gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed iyo degmada Hodanba waxaan ka codsanaa dadkaas baahiyaha gaarka leh ee guryaha ku jira ee aan meelna tagi karin ee nooc walba u ah in lagala qayb qaato ilmahooda in laga farxiyo intaas aan codsi ka ah oo il gooni lagu fiiriyo oo dadkaas duruufo gooni ku shaqeeyaan duruufahooda lagu la qaato war walaalkayo adaa ilaahay lixdaadii xadaa ku sii indhaagii ku sii xoolo ku sii magac ku sii awlaad ku sii hadaada u naxariisan dadka baahiyaha gaarka leh oo guryaha ku jira oo kaliyu fadhiyaan oo indhaha la oo lugaha la maxay taraysaa mas'uulnimadaada maxay taraysaa ganacsigaaga maxay taraysaa inaad dalkan madax ka noqoto dadkaas waxaan ka codsanaa in dadkaas loo naxariisto dadkaasna il gooni lagu fiiriyo qof kasta oo caasimadan iyo degmadan ku nool waxaan codsi uga caawa in il gooni lagu fiiriyo oo caruurtoodii awlaadooda laga farxiyo intaas waxaan rabaa codsi ah waxaad ogtihiin inaan degmadan ku soo afurinay madaxdii dalka iyo shacabkii ay isla afureen
kan annagu qaas noo ahayo mar walba waa qabsan jirnay haddaan nahay maamulka degmada Hodan halkan waxaan la joogaa dhalinyaradan quruxda badan dhalinyaradan sportska kuwa dhalinyarada gabdhaha ah hal doorkii bulshada aan nala jooga oo qaybaha kala duwan degmada ganacsatada ayaa joogta marka waxay noo tahay ganacsatada waxaan ka soo wadnay kuwa yararka dhalinyarada ah oo maxay ahayd aan ahayn kuwa jeebweynada maadaama ay wax kala shaqeeyaan ilaahay waxaan ugu duceynaynaa dadka ganacsatada ee jeebka yar ayaa waxay ka naxariis badan yihiin kuwa jeebweynayaasha oo wax ka bixiyo marka horta dhalinyarada ganacsatada ayagana waa u mahad celinaa waxaan tusaynaa annaga tusaale waxaan u nahay magaaladan waxaan u nahay shacabkeenna in maanta oo dhan haddaad kor marayso waxba soo saari maysid haddaada gudahaagan ogeyn waxay daaran tahay inaan idinkaga mahad celiyo munaasabadan inta ramadaanka laga geenayo degmadan intaa ka qabateen oo ah gudoomiye waaxidyada iyo gudoomiyaasha laamaha ayaan rabaa si gooni ah uga mahad celiyo caawa shacabkooda ay leeyihiin sababta waxay degmadan ka hirgeliyeen gudoomiye waaxidyada gudoomiye laameedyadu waxay ka hirgeliyeen 83 wado oo saddexda qaybood isugu jirta iyo wadooyinka ay fureen 83 wado waxay isugu jirtaa laami interlock iyo jidcadde ayay faleen la'aantood nalooma mahad celiyeen bilicdana lama soo qaadeen ma jiri jirin xaafadaan la geli karin oo aan horay dad business uga dhisnaa oo horay dad ganacsi ugu lahaa ayay waxay sababeen inay u furaan wadooyinkii inay dhisaan dib loo dhiso inay caawa ganacsiyada aragta laga sheego waa gudoomiyaasha waaxyaha iyo gudoomiyaasha laamaha aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa waxaan rajaynayaa weliba gudoomiyaasha laamaha ee 17 laamood ee degmada Hodan waxay ku shaqeeyaan duruufta adag wax mushaarana ma qaataan haddana waxay ka shaqeeyaan horumarkaas waxaad leedihiin bilad sharaf waana leediin mahad celinaa waana idin duceynaynaa ilaahayna ha idin barakeeyo maadaama aad xooggiina sadaqaysateen oo aad dadaalkiina ku wadaan maamulku waa tiro badan yahay caaw mahad celin maamulay ahayd ma ahayn siyaasad kale ma ahayn wax kale in la isugu mahad celiyo qaybaha ay ka kooban tahay degmadan Hodan oo qaybaheeda kala duwan ay ka kooban tahay umba waaye waxaan rabnaa inaan halkaan u joogno oo rabnaa inaan uga mahad celino iyo shacabka la degan shacabku maxay sameeyeen waxay sameeyeen wayna garab istaageen annagu ma sheegi karno libintaan lama sheegi karo kaliya waxaan lagu sheegi karin haddaad tiraa anigaa sameeyey anigu waxba ma tarto qof aan baalla lahayn baallaha aan ku duulaynaa waa shacabkeenna dardaarankayga ugu dambeeyaan raba inaan maamulka iyo shacabka la dardaarmo wuxuu yahay walaalayaal waxaan idinka codsanaa dhammaanteen maantay madaxda dalkan joogta oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ra'iisul wasaaruhu ku xigo oo gudoomiyaha gobolka ku xigo siyaasad cad oo aan ku badbaadaynay noo keeneen siyaasaddaas cadna waxa waaye sida aan amni u nahay inaan ku dhammaysano maxaa ay tahay sabab annaga markaan qabannay kulankii sportskood ogtihiin inaan degmada qayb ka mida basketball lagu dheelay garoon ayadoon ahayna laami aan dhisanay aan ku dheelinay ood ogtihiin inta ka soo qayb gashay markii aan culummadii xerta ahayd dariiqa suufiya ay jiidcadayaasha iyo interloogyada ku qabsadeen muxaadaradoodii ayagoo kumanaan kun oo qof ah ayagoo amnigan cidna ka baqayn markii muxaadarooyinka kale ee culummadu ay noogu qabatay laamiyada iyo interloogyada markii madaxdii dalkan ugu sarreysay aan wadooyinka aan dhisannay annagoon xirinoo geesaha laga maraayo aan afur ku samaysanay sababta siyaasiyiina waxay leeyihiin aan waxba garan oo waxba ogeyn waxay leeyihiin waa la xiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhex lugeeyay interlogyadan asaga ma wadada loo xiray marqaatiya ka tiinay ayadoo baabuurtina xagga maray asna halkan joog oo ku dhex lugeeyay annaga dhisanay maahan qof wax kale loo keenay okay waad ogtihiin afur wadaadka aan jidaynay maanta degmo kasta iyo gobol kasta ee Soomaaliya kamid in lagu qabanayo waxaan jidaynaynaa inaan doorasho ku qabsano wadooyinkan dhisanay oo aan codkanaga ku ridno oo aan ilaano codkanaga ku cilbaxayna waxa noo diidayay bal cid noo diidayay taa haddaan idin tusno 10 kun oo qof 20 kun oo qof aan meel ay isugu yimaadeen
garoomadii sportskiina saad aragtaan magaaladan ugu shaqaynayo waxa diidayo inay cod ku qabsadaan cidee waayo magaaladan dadkii asaas yeeshay mayna yeelin jidka annagaa dhisanay baalayaashana annagaa dhigay annagaana nadiifsanay nin hotel jiifa noo nadiifiyo ninka rabaa inuu dalka Soomaaliya xakumo haddana rabo magaaladan inuu suurad xumeeyo haddana hotel wadan shisheeyaha jiifo oo campaign uga jira waxaan leenahay walaalo magaaladan aan ku dhisnay hadaarta inaad xukunto adoon dadka dhihin waa baabeen adoon dadka dhihin waa lagu kala tagay adoon dhihin baalka la yiraahdo maxay ay too dhibaato ka jirta imaw xildhibaan kamid xildhibaanadii maalmood hadlayo la waa lagu kala tagay magaaladan habeen hor intuu lugeynayo inta loo gaano ka duceynayo ma waadiga waa la kala tagay hadda soo inta ma joogtid hadda soo halkaan ma maraysa yaa kula socod wallahi inuu soo wardiyo wadan bal amnigaas dadka suuro gali inuu asagu oo Cabdi Bilyaal oo jiray sanad ka hor iyo 2 sano ka hor oo magaaladan ku way jiro qabiilkiisa oo ciidanka dawladda u faan haddana waxa wardiyay wiilashaas duurka meel qoraxda ku daysay fadhiyaan si aan amni darro uga dhicin marka adoon dalka suurad xumeyn adoo caasimad dhisan oo la hagaajiyay waxaan sameeynaa mar dhow inaan jirdiinay sameeyno waxaan sameeynaa inaan geedo beerno waxaan sameeynaa inaan bilicdanadii soo ceshano ma jiri karto inaan anagu u noolaano waxaan magaaladan wax weyn laga bedelaa gudoomiye waxa yimid siyaasadiisu caddahay gudoomiye amiir waxaan rabaa inaad u sacabtuntaan sacab siisaan gudoomiye qalbigiisu nadiif yahay raba in magaaladan ay nadiif noqoto amni sugato doorashana qabsato saddexdaas una wataa waa maasinya gudoomiye soo salaamay dhammaan madaxdana salaam ka wada horumarkii reehodan aad gaarsideen ayaa tusaale u tihi aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh